imise xildhibaan ayaa la dilay xilligii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ahaa waddanka Soomaaliya muddadii xasan sheekh maxamuud dalka madaxweynaha ka ahaa waxaa waddanka gudihiisa lagu laayay xildhibaano fara badan kuwaas oo qiimo weyn ugu fadhiyay ummadda Soomaaliyeed waxaa xukuumadda xasan sheekh maxamuud hogaaminayay kamid ahaa inta badan ragga maanta dawladda Soomaaliya iyo madaxdeeda mucaaradka ku ah inkasta oo aan dawladda maanta jirta la barbar dhigi karin dawladdii xasan sheekh maxamuud haddana waxaan halkan idinku soo gudbinayaa xildhibaanadii waddanka lagu xasuuqay xilligii xasan sheekh maxamuud kow xildhibaan xuseen cabdisalaan maxamed September 2013 muqdisho labo xildhibaan maxamed warsame maxamed faysal December 2013 gudaha filla Soomaaliya muqdisho sanadka 2014 saddex xildhibaan isaaq maxamed riino 22 April 2014 muqdisho afar xildhibaan cabdicasiis isaaq mursal 22 April 2014 muqdisho shan xildhibaan maxamed maxamuud xayd 3 July 2014 muqdisho lix xildhibaan saado cali warsame 23 July 2014 muqdisho todobo xildhibaan sheekh aadan madeer 1 Agoosto 2014 muqdisho sanadka 2015 sideed xildhibaan cabdullaahi qayid barre 9 February 2015 muqdisho sagaal xildhibaan cumar cali nuur furdug 20 February 2015 muqdisho toban xildhibaan maxamed ducaale muuse xaaji kaafe 20 February 2015 muqdisho 11 xildhibaan yuusuf tirir 23 May 2015 muqdisho 12 xildhibaan cabdullaahi maxamuud xuseen baantu 25 July 2015 13 xildhibaan cabdi maxamed abdidoon 1 November 2015 muqdisho 14 xildhibaan maxamed axmed kurxan 7 November 2015 intii farmaajo madaxweynaha ahaa hal xildhibaan ayaa dhintay oo si qaldan ama kam ah u dhintay waana wasiir siraaji oo xildhibaan ahaa waxaana la hayaa ninkii gacantiisa ku dilay oo xiran haddaba ragga maanta buuqaya ee mooshinka wada oo ay kamid yihiin mahad salaad iyo axmed macalin fiqi labaduba dawladdaas xasan sheekh maxamuud ee sidaas ammaanka u dayacday ayay ka tirsanaayeen cajiib dadka Soomaaliyeed maanta waa soo jeedaan wajiyada fashilmayna waa yaqaanaan ee hal kale xishoodo fadlan sheer karay waxaan arkayaa dad siyaasiyiin Soomaaliyeed oo gabadhi meydkeedii ku korgortamayo oo gabadhi meydkeedii cid dishay oo baraha bulshada meel kasta ku soo qortay ka leexin al-shabaab oo laga dilay xabadka qaraxayna la leeyahay miina dilin anaga og cid dishay waa hebel farmaajo fahad badil ilaahay baa ku dhashay bal wax sayga waxa la leeyahay magaalada muqdisho nabad may noqoto xamay xasiloonto ma xasiloonayso ummaddu saan u bay u dabar go'aysa ummaddu saan u bay u soconaysa ilaa siyaasiyiinta muqdisho ku nool ee dadkaani ay ku korgortamayaan dhiigooda ee rabaan qof aan dilin in dushka saaraan ee rabaan dadkii ummadda Soomaaliyeed dhiigooda in ay jaraan ka dhigtaan oo dabaqya ka dhigtaan oo guryaha ka dhistaan oo daara ka dhistaan oo kursi ay ku gaaraan walaalahan baa ku dhashay bal wax bal maanta gabadhii meydkeedii baa waxa loo saarinayaa dawladdii iyo dadkii oo nimankii laga leexinaya dilay oo dhaxaya naga dilo xabadka qaraxay war waxa weeye hadday farmaajo fahad dileen gabadhaas masaakiinta maxay u dili waayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxay u dili waayeen mahad salaad maxay u dili waayeen odawa dadka ugu mucaarasana ee lagu doortay hirsi ee maxaa ku raada galmudug maxay u leen waayeen walba waa isweydiina maxay u leen waayeen gabadhaani maba ahaynba dadkii waxay ahayd gabadhii dambe la dilay baa lagu bartay oo cadaalad u raadinaysay gabadhii dishan cid islaga waxa weeyo war muqdisho siyaasiyiin ma haystaan oo dad ma haystaan oo wax ma haystaan oo xalaqay galeen baatiin oo bahal galeen baatiin oo siyaasigiini ba saan u hadlay oo qofkii rabay inuu horkaco indha idin noqdo ayaa wuxuu kursigii gabadhii iyo meydkeedii wuxuu rabaa inuu meel ku fuulo oo kursiga ugu sareeyo ku tago oo uu horumar ku gaaro sidoo kan kale oo waxba dilin oo masakiinka oo la tartamayo oo ugu duugatay waa taas waxa muqdisho ka socdo waa taas waxaysan weligeed muqdisho nabad u soo noqonaynin ilaa biicada iyo dadka ku nool meeshaasi ay maskaxdooda iska bedelaan ya baraha bulshada bal wax lagu qoray war dambiilihii waa la leeyahay dambiile mitiid oo nadiif ah ku aan dambiilahayn dambi laga saa waa taas waxa yaalo muqdisho waa waxas oo dadka loo xasuuqay loo gubaxayay ya intay saas tahayna u malayn maayo in wax